markay dhimatay lagu qubay dadku ay cabeenay meel dhigteen. subxaanaka yaa ilaahay, ma jirta axad aan nebi maxamed ahayn sala allahu calayhi wasalam. ta'hiirta barakada noocaasi heerkaa gaarsiisan qof lagu isticmaali karaa ma jiro. saxaabaduna ma aysan samayn ilaa nebi maxamed maahane sala allahu calayhi wasalam. abubakar wuxuu u diray, waa khaliifkii maalintaa ummadda haystaye, ciidan ayuu diray, shaam ayuu u diray. waa mar allaala markii khaalid lugihiisa ay ku sugnaadeen ciraaq, markaasuu khaalid ibni weliid dhaqaaqay. saxaraha iyo dhulka cidlada ayuu ku socday, lama degaanka ah. dhulkii ma yaqaano, raafic nin la yidhaahdo oo daliil u ah ayaa markaa la socda. jeyshkiisii ayuu la dhaqaaqay radia allahu tacaala canhu. wakhti dhowna waa uu ku gaaray bilaadii shaam. mar allaala markuu bilaadii shaam gaaray waxaa la socday 9,000 oo ciidan ah. isla meesha wuxuu ka helay ciidan kale oo meesha lagu diyaariyey. waxaa loo diyaarsan yahay yarmuuk. intaa ka bacdi wuxuu iqtiraaxay ee uu ku fikiray khaalid inuu ciidanka mideeyo oo hal jeesh keliya marka uu ka dhigo. qiyaad iyo nin maamulan inuu u diyaariyo oo ciidanka madax u noqdaa, asagoo u istaagay inuu tandiimiyo oo ciidankii wasacaya oo kala qayqaybinaya. intay macrikadii yarmuuga dhicin ayaa waxaa dhintay abubakar radia allahu tacaala canhu. ciidanka waxay ku jiraan furintii madaxweyne islaamkana waa dhintay oo abubakar. ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. maata abubakar ayaa markaa dhintay. tawaladii iyo maamulkii iyo khilaafadii waxaa qabtay cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu. warqad buu soo qoray. warqad ayuu abuu cubayda u soo diray uu ku casilayo ninka lagu magacaaba khaalid. madaxtinimada iyo maamulkana loogu dhiibaya abuu cubaydata caamir ibnu jaraax. khaalid ibni waliid cumar ibn alkhadaab ayaa casilay. sababta maxay tahay? dadkii baa fidnoobayba. dadkii way ku fidnoobi rabeen, weliba heer lagu fidnoobaa la gaaray khaalid, ilaa dadka gobolka mid ah ay maleeyeen nasri inuusan imaanayninba hadduusan ciidanka khaalid maamulaynin radia allahu tacaala canhu. laakiin abaa cubayda warqaddii waxay soo gaartay dagaalkii oo meel halisa maraya. taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa in abubakar warqadda cumar uu warqadda u soo diray khaalid, oo khaalid hogaamiye ah oo dagaalkii jira oo yarmuuq la kala daadinayo oo meel halisa dagaalkii uu marayo, ayuu warqaddii furay khaalid. waxaa ku qoran madaxtinimada ku wareeji ninka lagu magacaabo abuu cubayda radia allahu tacaala canhu. muslimiintii baa ku soo kala cararay say warqaddii u ogaadaan. waa tab dagaal, waa xeelad dagaal. gala dagaalka ayuu yidhi, dib baa laydinkaga sheegi doonaa. islaamku way daciifayaan, tabarta ciidanku way jabaysaa, waxyaabo fara badan baa markaa imaanaya. khaalid xaaladaa buu ka fikiray, warqaddii dib buu u dhigay. markii nasrigii iyo guushii la helay ayuu ummadda markaa u akhriyey radia allahu tacaala canhu. waayo aad baa loogu fidnoobayey. khaalid ibni waliid radia allahu tacaala canhu abaa cubayda waa qariyey kitaabkii ilaa macrakadii ay ku dhammaatay oo khiyaadadii uu ku dhammaystirtay khaalid ibni waliid. walaalayaal, khaalid saasuu ahaa. ilaahay baa ku manaystay subxaana wa tacaala shujaacnimo. ilaahay baa ku manaystay qawi iyo adkaan iyo karti. sidaa darteed khaalid ibni waliid jihaadkii ayuu istimraaray. khiyaadadii iyo maamulkii ayuu qabtay markii nebiga dhintay sala allahu calayhi wasalam. abubakar micigiisa ayuu ka dagaalamay ama dhinaciisa. intaa ka bacdi wuxuu ka buuxiyey bakhtigii musaylama ciidankiisii arladii dagaalka. furus iyo ciraaq iyo ruum iyo shaam, intaasoo dhan ayuu markaa dagaal ku hayay radia allahu tacaala canhu. asoo xaaladiisu ay meeshaa marayso ayaa waxaa adeeg soo diray abubakar, waa intuusan dhimanin ka hor, khaalid ibni waliid inuu usii dhaqaaqa ciraaq. geesiyaasha uu sii wato dhanka ciraaq la tago. mar allaala markuu meeshaa tegey ayaa khaalid wuxuu guda galay inuu warqad u qoro, risaalo uu u diro wilaadii ama madaxdii kisraa iyo intii nawaa'ib markaa u ahayd ee meelaha kale markaa naa'ib uga ahayd oo markaa uga talinaysay. warqad buu soo qaatay. muxuu ku qoray? bismi illaahi araxmaani araxiim. fiiriyo walaal warqadda la qorayo. bismi illaahi araxmaani araxiim. min khaalid ibn alwaliid
waxay ka timid Khaalid ibn Waliid. waxay u socotaa buu yidhi warqadan ilaa muraasiyati faris inta maamusha madaxdooda. salaamun calaa man ittabaca alhudaa, salaamun calaa man ittabaca alhudaa. intaa ka bacdi ilaahay baa mahad iska leh, allihii awooddiinii jebiyey, mulkigiinii siibay, kaydkiinii iyo dhagartiinii daciifiyey, ee qof kasta man sallaa salaatana, qofkii salaateena tukada, wastaqbala qiblatana, qibladeena qaabilee u soo jeesta, dabiixadeena iyo gowraceena cuna. waa muslim, waa muslim. waxa uu leeyahay waxaan anaga leenahay, waxaa korkiisa ah waxaa korkeena ahaaday. hadday warqadaydan idiin timaado, war furus madaxdeediiyay, rahan ii soo dira, ictiqaadiya inaan aniga idinka awood badanahay, dime iyo ballan isu soo dhiiba. haddaad sidaa yeeli weysaan, fawalladii laa ilaaha hayruhu, ilaahii asaga mooye mid kale uusan jirin ayaan ku dhaartaye, waxaan idiin soo dirayaa qowman yuxibbuuna almowt kamaa tuxibbuuna alxayaat, rag geerida jecel saad nolosha u jeceshihiin. radia allahu tacaala canhu. allahu akbar. ciidan baan idiin soo dirayaa haddii aad amarkayga qaadan weysaan. haddii aan waxaan idin amraya aad diidaan, fawallaahi aladii laa ilaaha hayruhu, ilaahay asaga mooye mid kale uusan jirin ayaan ku dhaartaya, ciidan baan idiin soo diri doonaa, bacthi baan idiin soo diri doonaa, koox baan idiin soo diri doonaa. yuxibbuuna almowt kamaa tuxibbuuna alxayaat, saad nolosha u jeceshihiin bay geerida u jecel yihiin. dagaal baa bilowday walaalayaal, dagaal ayaa markaa bilowday. Khaalid radia allahu tacaala canhu weli dagaalkii ayuu ku jiraa, weli dagaalkii ayuu markaa ku jiraa. maalin maalmaha kamida qiyaadadii ruum, waa intii ruum lala dagaalamayey, ragga abbaanduulayaasha mid ka mid ah oo geesi ah ayaa soo baxay. markaasuu doonayay inuu Khaalid mubaarasa la sameeyo. mubaarasada waan soo baranoo waa dagaalka layska hor yimaado, dagaalka layska hor yimaadaa la yidhaahdaa. waa rag ka rag maa dhufaysaa la gelayaa, juuni waxa lagu shubanayaa, mataqaanaa caro, calooshaa dhulka la dhigayaa, xabadba xabad la tuuraya, hoos baa loo gabanayaa. laa, rijaal waa soo istaagayaa, kanna waa soo istaagayaa, saasaa laysaga hor imaanayaa, seefaha galalka laga kala baxsanayaa. kaasaa dagaal ah walaalayaal, kaasaa dagaal ah. maahana koraa laska soo rusheeyaa iyo taangi aan wax karin baa lagu jiraa iyo dagaalba. subxaanaka yaa ilaahay. intuu seeftiisii soo baxsaday ninkan ii sheeg ruum ka socdaa, khaadadooda ah, jarjah ama jurjah baa la oran jiray baa la yiri. khaalidow ii bax buu yiri mubaarasa. khaalid baa usoo baxay radia allahu tacaala canhu. khaalid ayaa u soo baxay si ula mubaaraso. mubaarasada inta badan way dhici jirtay, inta badan way dhici jirtay. markuu Khaalid u soo baxay ninkan ogaaday ninkan in sayfullah ay tahay. Allahu akbar, Allahu akbar. khaa'idkii ruumiga ahaa uu hadlay, muxuu yiri warnin yahow, ma ilaahay baa nebigiina seef ku soo dejiyo cirka uga soo dejiyey buu yiri. uu cabsadayba. aw mubaarasadii, away dagaalkii, away wuxuu dhahay maanta oo dhan. muxuu yiri ilaahay nebigiina cirka muu seef uga soo dejiyey buu yiri, oo fa actaaka adiga lagu siiyey, oo aadan u siibanin qoom ilaa inaad jebiso maahane. Khaalid wuxuu dhahay laa, maya. jurje wuxuu yiri maxaa lagugu magacaabay sayfullah? waa gaaladii. sababta sayfullah lagugu bixiye maxay tahay? Khaalid wuxuu yiri ilaahay caza wajal ayaa wuxuu noo soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. dhammaantay waan ka cararnay, waan diidnay. ilaan diintiisaan moodaynayba diin aan fiicnayn, diintiisaan moodaynay sas naga galay, waa ka fogaanay dhammaanteen. intaa kadib gobolkayo way rumeeyeen, wayna raaceen.
gobolkayana way ka fogaadeenoo way beeniyeen. aniga dadkii beeniyey oo ka fogaaday ayaan ku jiray, waan la dagaalamay. intaa ka bacdi baa ilaahay quluubteena iyo nawaasiideennii fooddeena intuu soo qabtay yuu nagu hanuuniyey islaamkii, markaasaan raacnay. markaasuu nebiga ii yidhi anta sayfun min suyuufi illaah, seef baad tahay seefaha ilaahay ka mid ah subxaana wa tacaala. sayf oo suyuufta ilaahay ka mid ah oo mushrikiinta galka looga bixiyey. mushrikiinta galka looga bixiyey. intaa kadib buu nebi moxamed nasri iyo guul iigu baryey ilaahay subxaana wa tacaala. fa ana min ashaddi almuslimiina cala almushrikiin. aniga khaalid ah waxaan ahay muslimiinta midka ugu daran mushrikiinta korkooda. ilaan seef ilaahay oo gal baxsan waaye. radia allahu tacaala canhu. khaalid seef ilaahay ayaan ahay galka ka baxsan. waxaa loo sharxayaa hadalkaa waa gaal, waa qaa'id, waa hogaamiye, waa abaanduule ruumi ah walaalayaal. intaa markii loo sheegay wuxuu yidhi sadaqtanii, run baad ii sheegtay, maxaad iigu wacaysaa marka? waayahe bal wax uun ifar, wax uun ifar. qoortaan kaa goynaa, meeqaad dagaalamaysa lama oranin. qaa'id ruumi baa tahoo sayfullah, seeftii ilaahay sababta loogu bixiyey ayuu weydiiyey. wuxuu isdhahayey nebigaa ilaahay cerka intuu seef uga soo dhiibay, khaalid baa loo dhiibay, markaasay seeftuba dadku baabi'isaa. waa loo sharxay. maxaad iigu yeeraysaa? dil baan kugu yeerayaa ma aha, inaan qurka kaa goyaan kugu yeerayaa ma aha, ee waxaa loola jeedaa inaad ilaahay qirta subxaanahu wa tacaala, inaad nebi moxamed risaaladiisa marxabaysiiso. intaa ka bacdi shacaa'irkii islaamkaa loo wada sharxay. wa kharajaa macan, way israaceenba. khaalid iyo asaga intay isku dhinac ka soo jeesteen yuqaatilaani aruum, ruumkii uu ka soo jeedoba la dagaalamoyaaba. allahu akbar. ruumkii ayuu markaa la dagaalamayay. khaalid ibni waliid ninku dayasho mudan buu ahaa walaalayaal. khaalid ibni waliid haddii asagoo dhan la waayo, barkiisana la waayo, 3 marka loo dhigay qayb ka mida la waaya walaalayaal, 4 marka loo dhigay qayb ka mida xataa haddii la helo, dullinimada waa ka baxaynaa maanta. 4 marka loo dhigay qayb ka mida. khaalid ibni waliid radia allahu canhu. xiiro markuu degay ayaa waxaa la yidhi war iska jir, dadkan sun bay dadka siiyaane. xiiraa tegey. markaasaa la yidhi ixdir assum, war sunta ka digtoonow yaysan ku cabsiinin raggana caajimta ahe, raggan acjamiga ah iska ilaali. u'tuunii bihi buu yidhi, ii keenaba sunta la sheegaayo, sunta la sheegaayo keenabal, ii keena aan arkee sunta la sheegaayo. fa atowhu bih, waa loo keenay. fa aqadahu biyadihi, gacantiisa wuu ku qabtay. waa dhala sun ah, dhala sun ah waaye. huma qaala bismi illaah waqtaxamahu, waa qurquriyey. bismi illaahi waa la cabay. falam yaduruhu, waxba kama tarin. wax ay ka tartay iyo wax ay ka dhintay iyo wax ay ka dhibtay ma jirta. khaalid radia allahu tacaala canhu. allahu akbar. warin habeen iyo maalin ilaahay diintiisa u taagan, warin habeen iyo maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala jasadkiisa marna waran ku dhacaayo, marna seef ay ku dhacayso, marna gamuun uu ku dhacaayo. waa haraadsan yahay, biyuu rabaa, biyo ma haysto, muxuu cabayaa? sunta waa lagu dhimanayaa. waa qurqurye radia allahu tacaala canhu. subxaanaka yaa ilaahay. khaalid, wamaa adraakum maa khaalid. walaalayaal, rag baa adduunkan soo maray,
taariikhda baaldahaba ka galay. wayna isaga tageen adduunkii oo dhan. maalmahooda oo dhan waxay ka dhigeen maalmo daacaad. maalmahoodao dhan waxay ka dhigeen maalmo ilaahay diintiisa loo adeego. saacaadkoodao dhan waxay ka dhigeen saacad ilaahay daacadiisa lagu dadaalo. cumrigooda oo dhan waxay ku dhammeeyeen ama ay ku baabi'iyeen ilaahay diintiisa oo loo halgamo subxaana wa tacaala. 40 iyo 50 baan kor u dhaafnay. waxaan adduunka u tarnay iyo waxaan diinta ku faa'iideynayna ma jirto. ilaa inaan dad ku xamanay, ilaa inaan dad ku korcaynay, ilaa nudfo iyo shahwo xaaraana inaan ku daadinay, ilaa inaan dhiig islaameed ku daadinay maahan. ma wax kalaan ku samaynay walaalayaal islaamka? ma wax kalaan adduunka ku qabanay? maxaan kordhinay? maxaan samaynay? maxaa nala ka istafiidayaa walaalayaal? adduunka waa cuslaynay, waa cuslay.